kusoo dhawo Fan Academy taa waa calaamada subscribe-ka kadibna furo gambaleelka taana waxay ku saaraysaa cashar kasta oo aynu soo dhigno inuu kuu soo dhaco isla waqtiga aynu soo dhigno waad mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kusoo dhawaada Fan Academy darsigeenan waxaynu ku baran doonaa countable nouns magacyada la tirin karo Countable nouns are for things we can count using numbers. They have a singular and plural form. The singular form can use the determiner a or an. If you want to ask about the quantity of a countable noun, you ask how many, combine it with the plural countable noun. Countable nouns are for things. Waxaa loogu talagalay shayada we can count aynu tirin karno using inagoo isticmaalayno numbers tirooyin. They have waxay leeyihiin a singular and a plural form qaab mufrad iyo qaab jamac ah. The singular form qaabka mufradka ah can use wuxuu isticmaali karaa the determiner a or an determinerka a ama an ayuu isticmaali karaa. If you want haddaad doonaysid to ask about the quantity inaad weydiisid tirada of a countable noun magac la tirin karo you ask waxaad wax ku weydiinaysaa how many waxaad doonaysaa inaad ogaad tiro shayyo la tirin karo waxaad ku bilaabaysaa how many combined with waxaa la raacinayaa kadib ama raacayso the plural countable noun magac la tirin karo oo jamac ah tusaale waxaan leeyahay how many books do you have how many books do you have how many waa su-aashii bookisna waa magac la tirin karo oo jamac ah countable nouns are for things waxaa loogu talagalay shayada we can count aynu tirin karno using inagoo isticmaalayno numbers tirooyin they have waxay leeyihiin a singular and a plural form qaab mufrad ah iyo qaab jamac ah the singular form qaabka mufradka can use wuxuu isticmaali karaa the determiner oo ah a or an if you want haddii aad doonaysid to ask about inaad wax ka weydiisid the quantity tirada of a countable noun magac la tirin karo you ask waxaad ku weydiinaysaa how many waa imisa meeqa combined with la raaciyey the plural countable noun magac jamac ah oo la tirin karo singular plural mufrad iyo jamac singular mufrad plural jamac one dog hal a two dogs laba a one horse hal faras two horses laba faras one man hal nin two men laba nin one book hal book two books laba book one shop hal dukaan two shops laba dukaan singular waa mufrad waa magac hal ah ama shay hal ah and plural waa shay jamac ah tusaale one dog hal a dog waa mufrad wuxuuna qaataa sidoo kale tiro number oo ah one ama two one dog hal a two dogs laba a one horse hal faras two horses laba faras one man hal nin two men laba nin one book hal book two books laba book one shop hal dukaan two shops laba dukaan you can use waxaad isticmaali kartaa some oo ah xoogaa and any wax with la isticmaali kartaa plural countable nouns magacyada jamaca la tirin karo tusaale we ate some eggs waxaynu cunay xoogaa ukumo ah some xoogaa did you get any books wax bugaaga ma heshay any books wax bugaaga I haven't any books wax bugaaga ma haysto you can use waxaad isticmaali kartaa some and any labadaas erey oo ah xoogaa iyo wax with plural countable nouns magacyada jamaca la tirin karo tusaale we ate waxaynu cunay some eggs xoogaa ukumo ah did you get ma heshay any books wax bugaaga I haven't any books wax bugaaga ma hayo we use waxaynu isticmaalaynaa money and few money oo badan iyo few wax yar ah with plural countable nouns magacyada la tirin karo ee jamaca ah tusaale we do not have many cars inagu ma haysano gawaari fara badan
I have a few pennies. Waxaan haystaa qalimaan aad u yar ama yar qalimaan dhowr ah oo yar ayaan haystaa. We use waxaynu isticmaalnaa money and few labadaas erey oo ah money badan few wax yar ah with plural countable nouns magacyada jamaca ee la tirin karo. Tusaale, we did not have many cars. Inagu ma haysano gaari fara badan. I have waxaan haystaa a few pennies xooga yar oo qalimaan ah. Examples tusaalooyin. I own anigu waxaan leeyahay a house guri. I would like waxaan jeclaan lahaa 2 books laba book please fadlan. Waxaan rabi lahaa laba book fadlan. How many friends do you have? Imise saaxiib ayaad leedahay? I aniga own waxaan leeyahay a house guri. I would like waxaan jeclaan lahaa 2 books laba book please fadlan. Ama waxaan rabi lahaa laba book fadlan. How many friends do you have? Imise saaxiib ayaad leedahay? Waad ku mahadsan daawashadaada.